munaasabadan oo ay soo abaabuleen haweenka gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran ayay ku taageereen kacdoonada abaabulan ee ka dhanka ah ciidamada Soomaaliland kuwaasi oo ku hareeraysan magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Munaasabada ayaa lagaga soo horjeeday dilalka qorsheysan ee lagu beegsanayo aqoon-yahanka waxgaradka iyo labeenta bulshada gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood. dhinaca kale waxay haweenku u jawaabeen hadal dhawaan ka soo yeeray Mahad Cambaashe kaasi oo ku goodiyay inuu tallaabo ka qaadi doono ciidamada deegaanka iyo dhinacyada kale ee bulshada ee ka soo horjeeday joogitaanka ciidamada maamulka Soomaaliland. xarunta Laascaanood inta cadow ku xeeran yahay xarunta Laascaanood inta cadow ku xeeran yahay ina Cambaashe iyo Saleebaan xogta u hayaan ina Cambaashe iyo Saleebaan xogta u hayaan xulufadii muuse xusul dubka ugu jiraan xulufadii muuse xusul dubka ugu jiraan gobolku ma xoroobin oo looma degin xalaal. halkan waxa isugu yimi haweenka gobolka Sanaag degmada Baran waxay ka wada hadlayaan shir saxaafadeed ay ku taageersan yihiin Laascaano waxa weeye gobol kamida gobolada Puntland gobol kamida weeye kelmad waxa leeyahay musabbixo dawlad ma tihid madax banaan dadna ma xukumi kartid waxa tahay askari baa tahay askarina xal dagaal buu ka yaqaanaa waxa lagu dhiibay maamul goboleed yar oo lagu sugayo nabadgelyadiisa iyo noloshiisa Soomaaliya oo midaysan lagu sugayo baa lagu dhiibay waxaad ku wadaa in qabiil la isu dilo dadkuna uu isku rogmado sida hadda faraaq kula jirtay waxaan leeyahay marka wixii lagu dhiibtay ka tali Soomaaliland waa qabiil waa maamul goboleed yar waa meel la isdhex mari jiray la wada daaqi jiray la wada deganaa laakiinse ma ahayn dawlad madax banaan ma ahayn waxa lagu sugayay xal nabadgelyo oo lagu sugayo looga gudbayo Soomaaliya bay ahayd talaabada hadaafin baan leenahay musabbixi wixii lagu dhiibay hal lagu yimaado oo burburiya dagaal dalka ha gelin hana horseedi Soomaaliland shacabkeedu waxaan u sheegayaa siyaasiyiintu intay Soomaalinimadii ku xiriiriyeen oo ka saareen ayay abtirsiintoodina ka saareen anigu waxaan ku garaadsaday Isaaq oo la yiraahdo Sheikh Isxaaq bin Ahmed bin Hashim oo Carab gala waxa timi intii Soomaaliya burburtay Isaaq oo yiraahdo waxaanu nahay war qofku aabihii kama tago aabe labaadna ma yeesho waxaan leenahay marka shacabka Soomaaliland yaan la idin wareerin abkiina iyo abtiriskiina iyo waxa tihiin ha ka taginina nololna kula noolaada shacabka Sool iyo Sanaag nabadgelyada geedaha ku wada daaqdaane nabadgelyada yaan la idinka calaqadayn qabsada dadkiina ku xisaabtama hadii maamulkiina qaldani sii socdo waxa loo tagayaa gacanta la isla gelayaa shacab isbarin maayo hambaliyo diriyaa dhamaan shacabweynaha ku nool gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood waxaan leeyahay dhalinyaro iyo waayeel hambaliyo guulba muujiseen guulba noo soo hoyseen aad baan ugu faraxsanahay himilada ka muuqata magaalada Laascaanood gaar ahaan dhalinyarada si la baxday ee gaarisutaaga waxaan leenahay guulba haysaan guushiina halka ka wadaana garabkiina nahay goor walbana waa idin soo soconaa waa idin la joognaa idin kama fogin ninka Mahad Cambaashe waxaan leeyahay abti doqada xuniga ma geedide ilaahay ku soo hadeeyo ku soo hanuuniyo ilaahay noo ka soo celiyo in Djibouti waxaan leeyahay abti macaanaad baad u mahadsan tahay guusha aad muujisay in badan baa lagaaga fadhiyo laga sugay Mahad Cambaashe waxaan leeyahay abti macaan guusha guul la midaan ka rajaynaynaa in ilaahay naga qaatiso ilaahay cadowga ka soo saaro ilaahay sixirka lagu siiyay in ilaahay siyarkaaga saaro garanayna anagu si lagaaga saari doono oo soo dadkaaga quraan ha lagu saaray quraan saar baad u baahan tahay Maxamed madaxweye madan alla dhaafi karin Maxamud midigtiisi weeyanu ka maarmi karin Maxamud midigtiisi weeyan ka maarmi karin Sicidna wahanado hubka wayno sida Sicidna wahanado hubka wayno sida Ahmedna wala mahuraan hoyga lagu hirtaa hambaliyo iyo bogaadin aan ugu hambalyeynayno gobolkayaga Sool anaga baan u hambaliyo weeye wax kala calaacala ma jiraan anaga hambaliyo aan leenahay gabdhaha nagala soo qayb galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin aad taageero weeye aan ku taageerino tolkayaga gobolka Sool sida ay isaga celiyeen cadawgiisa isaga riixeen hambalyeynana reer Sool oo iska kiciyay cadawgii
waxaan u sheegaynaa mid in cambaashe oo ceebeeyay tolkii iyo dhammaan shacabka reer dhulbahantay reer sool waxaan leenahay in cambaasho caada qaatayaashu way qarsoonaayeen adigu was ceebaysay adigoo soo taagay banaanka maanta meel kasta oo marayna la leeyahay jaacsiyaad baa soo hadlay ceebta aad noo geysatay mid maaha dadka laga dhixbixi doono baan maleynaya wax ka meereeyana la garanay dadka leelaayada adigu afkaaga ka sheegtayna daadaa dadkii dhalay maxaan maleynaya meel saari doono hadii lahayn sida inta arti degan yahay oo dhan waa laga hadlay waa laga mudaharaaday dumar kaliya ma hadlina rag baa hadlay ismadii iyo boqoradii baa hadlay waxa hadlay cuqaashii iyo waxgaradkii gobolka Sanaag aad iyo aad waxaan uga qiiroonayaa marka aan arko rag garacsa oo duubaba oo dhaqan iyo odayaal bale oo ka hadlaya arrinkaas Siciid Harti walaaleen sida loo gelayo baan aad iyo aad uga xanuunsadaa waana wax laga xanuunsadaa laakiin fadlan waxaan rabnaa inaynu ka midowno Muuse Biixi iyo caada qaatayaasha u wato inaynu iska dhicino horar weeye inaynu iska dhicino dadkaas Yaxya Faafaan wararka Sahal Cable magaalada Baran ee gobolka Sanaag ma ogtahay macmil in akoonka Sayfin akoon oo kamid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees Sayfin akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keedso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo ka sii dooranaya goobin faroom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh